الرحمن الرحيم مركو هو وحن كبلاوينا بسمك الله إن وحن جعلها إن ضمان عن أباقو إن بلغيرة السنة كحيلة صوب بحيسو يوسيدا متقانا إن قرق يدمر منك أهضامو قيمة يدرجدا ووالد ليه أيان جعلها مركو هو وحن جبتو تاريخه هو يقول لعضي لبنين أيا حول الرأي يغوه waxay go'aansadeen inay miigi ay ka soo tagaan magaalada ay soo galaan waalidka dhalay u tageen markaas waxay ku dhaheen anaga waxaan jecelnahay inaan miig aadno aan daneysano odayada iyagoo ka xuno arintan ka madax lulaayo ayaa waxaa dhacday labadii aabbo wiilashooda markay go'aankaas gaareen mid aabihiis wuxuu dhahay meel alla meesha tagtid dadkii joogo walaal Allah kaaga dhigay iyo waalid midka kale aabihiis wuxuu dhahay hal waayo meelaad ku haarsatid markii waalidiinta ay ka soo tageen waxay soo galeen magaaladii soo galeen markii magaalada soo galeen iyagoo maqaayad ay shiteen maqaayadii markay shiteen ayaa waxa dhacday in ay shirka ay noqdaan midkii oo aabihiis dhaameelad ku harsad hal waayo markuu cabaar wixii isku xirmeen go'aan wuxuu qaatay inuu kaligiisa meel digo oo u shaqeysto shirkadii uu ka baxay meel gooni digay dad kale oo la shirka noqday dadkii asigoo la shirka ah ayaa haddana mar labaad waxa dhacday inuu ka baxo meel kale shirka ku noqdo kii oo aabihiis dhahay meel alla meesha tagtay dadka jooga waalid iyo walaal Allah kaaga dhigo way u shidantay magaalkii uu guri ku yeeshay reer u yeeshay xaas u yeeshay sanado kadib waxa magaalka imaaday labadii waalid oo isla socdo ayaa magaaladii yimideen markay yimideen dadkii ay soo raadiyeen waxay ka soo dhaceen ninkii duceysnaa markay ka soo dhaceen ninkii duceysnaa ma sha Allah waalidkii uu soo dhabeeyay waa la soo wareystay waa marti sooray markaas kadib ay warninkii hebel ahaa ka warninkii hebel ahaa meel hebel baa lagu sheegay markaas inuu soo baxay ninkii waxa loogu yimid macnaha meesha uu joogay waa laga waayay meel hebel maqaayad ugu furan meel hebel maqaayad ugu furan markii ugu dambeysay meel ayaa laga helay soo maqaayad ugu furan oo duruufta ka muuqatana ama maqaayadii ayuu dhinac ka seexdaabo shaqaalihi asu shaqeynaa asaakaliisa maqaayadu dhinac ka seexdaa markaas kadib ayaa aabihii kala ooyay labadii waalid is wareysteen warniyow labadan wiil hal maray soo baxeen isku go'aanayna aayeen maxaa kala bedelay adiga wiilkaaga maxaa dhahday aniga inaan caruudan waxa uu yiri meel aad ku harsatid waay aniga wiilkayga waxaan dhaho yiri meel alla meesha joogtay noqo dadkii ku jooga waalid iyo walaal ha ku noqdaan sidii ayuu horumar ku gaaray horta waa markaan ka hadlo dhanka aabaha markaan ka hadlo waaye xadiiso badan waa jiraan oo quraanka ku jiro aabahana qiimo lagu siiyo hooyana qiimo lagu siiyo markaan ka baxo taasi dhanka hooyo markaan u baxo nin baa dhalinyaro 20 jir asigoo ah hooyadiisii oo reer miyiga ah oo xoolo dhaqanayso ayaa xoolihii soo xareysay xoolihii markay soo xareysay waxa jira wax xoolaha loo shido oo sida loo yaqaan dox oo xoolaha maqribada xilliga qabowga loo shido doxdii markay u shiday ayaa iyadoo biyo rabto wiilkii caweys soo u cararaay oo hooyadii orod ku soo hormaray oo labada jilbo oo dif ka sii markaas ay wax dhada jilbaha iga jijbeen jilbaha lama qabsaday jilbaha iga jijbeen jilbaha lama qabsaday hooyadii waa dhimatay ninkii hantida hooyadiisu helay kaligiisu ma aha magaalo yimid nin dhaqan noqday dhaqaalo yeeshay xaas walba guurso waxba kama dhala xaas walba guurso waxba kama dhala xaas walba guurso ilaa dibadda tagay markuu ilaa dibadda tagay daawo raadi waa markii dib uu qursay culumo wacday culumadu markuu wacdo waa isqraamiyay markuu isqraamiyay kadib wuxuu yiri culumadii haleed duceeyo waleed duceeyo danta heestaas waa culumada markii culumo lagu leeyahay culumada hadaladooda laashin oo kala waa sida abwaanada waay ninba ducada wuxuu ka dhigay wixii ku hayay waa hareen hal waalid minay ahayn wixii ku haayay waa hareen hal waalid minay ahayn ninkii wuxuu yiri igu soo celi maxaa tii wixii ku haayay waa hareen hal waalid minay ahayn wuxuu soo xasuustay erayga hooyadiisa wuxuu yiri taariikh maliyun fulan ayaan qaladkaas kale hooyadeen waxay ugu dhahday jilbaha iga jijbin jilbaha lama qabsadee ilaa caruurta markay daadihees joogaan waalidka jilbaha ka qabsadaan markay soo istaagaan jilbihiisa ku soo istaagaan jilbaha iga jijbin jilbaha lama qabsadee waxaan ilaahay ka baryaynaa taasna inaan ilaahay aan aga magan galno inaysan dhicin ayaan rajaynaynaa insha Allah maadaama oo teemkan hadda igu sii socdo waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo hees yar aan hooyo ugu talagalay heestaasi tixda waxay noqonaysaa horkacii nolosheedii hogaankii adduunkii hooyo xaliima xasuusta aan hilmaami maaye xitadaan ku xambaaro hooyoy haqaagi ama ku helaaye waa xasuusaha xilada maxay hunkee hurda kaaga habsaantee
hilinta xalaashii horeysay xiladaha maxay hunkay hurda kaaga habsaantee hilinta xalaashii horeysay xitadaan ku xambaaro hooyoy haqaari ama ku helaaye waa xasuusaha ama ku helaaye waa xasuusaha ama ku helaaye waa xasuusaha ummi alla yaa qaliig waxaan farayaa dhalinyarada nin walba oo waalidkiisa nool waxaa u nool duco iyo habaar waa jaanis midkuu ka faa'iidaysto ayuu helayaa si nin abuurtay sibir uma soo baxo sibir nin abuurtayna si uma soo baxdo taasina waxay iga tahay waana abuuris baa ka horeysay insha allah janankaa la soco waasaan hore idinku sheegay fiyuuskiina waad ku faa'iidaysaan insha allah biidn allahu kariim afuufo maxaad aad ka fikir ka dhiiban kartaa barnaamijkan waanada aan hadda aan bixiyo maxaad ka heshay maxaana ka faa'iiday والله محن كفاية ودي والله أنا والد دعست له ودي دعسنا حجك ملاسنا جيستي لكن والله بعد تروح يسمع واحد معناها ما أنت كاس ومن ملك الأسعد سوما أديك واحد كنت داشا هو يدا هدي كل هذا هيب كان مراد قبل إن أنت جوست تسيق عن هذا وصينا وتفائدي سامك سيدا والد كابو إيش ويل كاجا كويلا إن شاء الله مركب كمان كلا يردا أوكي هذيك أنا كل الحين كلا يردا اللي كنت تسوي من المجارين يعني ما فكر كقطع عرما عن هو اللي أبا أجا هذا هذا وين راح في عمان دراجين في عمان في إن شاء الله مركب جنن كينا سيدا سأقول سعون كرتان وجنن كهذا عن الدين شغلي أنت اللي عصب وأنا قاعد عصب بصوما أنت أنت عصبنا عن كعصنا سكراب كإنا موبدسان شركة لاج فيوسكا وحي قلق أنا قاعد أركتان في كومنتيجا إن شاء الله تعالى وعن إذن الله هاي هبون ونكسم جمعة مبارك بإذن الله الكريم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين كل فرج على المسلمين الذي الله من دون الله كاشفة لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين السلام عليكم هل كان برنامج كينا كسو جبوبي إن شاء الله تعالى